بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد daawadayaal casharkan waa casharkeeni koowaad ee ku saabsanaa nutritionka iyo dietka barnaamijkan waxaan u sameynayaa sababta oo waxaan helay codsiyo fara badan oo walaalaha raba barnaamijka inay ka faa'iidaystaan ay rabaan in aan usoo diyaariyo kadibna aan ugu soo gudbiyo social mediaha maanta marka waxaan 5 daqiiqo isdul taagaynaa ahmiyadda nutritionka iyo dietka uu leeyahay kadibna waxaan isku dayayaa in aan meal plan kusoo gudbiyo si aad ugu dhaqantid 2 maalin ama 3 maalin oo soo socota barnaamijka aan ka hadlayno dietka ah ama nutritionka waxaa lagu tilmaamaa dadweynaha Mareykanka ku nool ee Ameerikaanka ah 67% in ay overweight iyo obese ay yihiin marka waa arrin khatar ah oo epidemic ah oo dadka dhan ku faafay waxa mataqaanaa daawo aan loo hayna ay jirin marka oo loo hayna aysan jirin marka insha Allah walaalayaal waxaan rabaa wax yar inaan dul taagno arrimahan qofka markuu overweight noqdo ama obese uu noqdo ama cunto xun uu cuno waxa la soo gudboonaada xaalado aad u xun xanuunada chronic disease ay yiraahdaan sida cholesterolka diabeteska macaanka kidney problems kaliya xanuun hurdo la'aan qofka maalintii iska hurdaaya qofka aan hurdo ku filan habeenkii aan heleynin liver problems ka qofka mataqaanaa kaadida ay dhibto xanuuno fara badan kansarka waxyaalaha fara badan qofka la soo gudboonaado marka insha Allah muhiimka ugu weyn aan rabo maanta in aan kusoo gudbiyo waxa waaye in aan cuntooyinka aan cunno sonkorta iyo saliidda iyo cusbada iyo burka cad u badan yihiin in aan iska ilaalino waxaan idin ballan qaadayaa hadduu Allah awood leeyahay idmo barnaamijkan aan raacdaan in isbedel weyn oo aad u weyn biidin Allah tacaala nafsadiina aad ku arki doontaan koowan marka waxaan rabaa in aad marka ugu horeysid ba iska deysid sonkorta aan ka hor bilaabay cuntooyinkan sonkorta laga helo iska deysid sida mataqaanaa shaaha faraha badan ee la cabayo qofka Soomaaliga waxa lagu tilmaamaa average isku celcelis maalintii 2 koob 3 koob shaah uu cabaa maalintii koob shaah inuu cabo way uu ku qasbay ma la garanayo wax ku qasbay laakiin uu cabaa sida waxyaalaha kale oo saliid ay ku badan tahay burka sambuuska canjeelada ma garanaysa waxyaalahaas oo dhan qofka inuu iska ilaaliyo keega ama macaanka waxyaalahan qashinka ah inaad iska ilaalisid ayaa loo baahan yahay cuntada Soomaalida waxay u badan tahay cunto processed ah sida canjeelada si loo sameeyo sida baastada cunno bariiska oo refineka ah marka waxaan rabaa sonkorta cuntooyinka ku jirta inaad iska ilaalisid sonkorta sidoo kale waxay sonkortan cad ee anaga aan shaaha ku darsanno waxay dib weyn u keentaa qofka bini aadanka ah dhinac walba xagga maskax ahaan iyo xagga jir ahaanba way u keentaa sonkortaas markay jirkaaga gasho waxay toos u aadaa liverkaaga iyo kaliya mataqaanaa beerka weyn waxay ka hor istaagtaa shaqooyinka uu qaban lahaa ayay ka hor istaagtaa beerka yar ee pancreas kala yiraahdana hormoonka insulinka uu soo sideen lahaa ayay ka hor istaagtaa kadibna macaankii ama diabeteski ayaa ku dhacaya sidoo kale waxa lagu tilmaamaa dumarka markay ay dhalayaan oo gestational diabetes sonkorta mataqaanaa uurka markuu ku dhacayo sonkor badan ayay beebiga siiyeen marka waxaa laga rabaa in iska ilaaliyaan gabadha uurka leh ee rabta in mataqaanaa dhasho xoogaa kadib inay iska ilaaliso waxyaalaha macaanka leh haddii kale beebigii wuxuu cunayaa wax aad u macaan oo fara badan marka waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha loo baahan yahay inaan iska ilaalino weeye insha Allah tacaala waxaa sidoo kale loo baahan yahay qofka markaa cunaysid small portion inaad ku bilowdid wax yar ma garanaysaa maanta wax yar inaad cuntid hadhowti wax yar inaad cuntid haddana xoogaa in meeshaad hal mar ama 2 jeer wax ka cuni lahayd waxaa loo baahan yahay inaad small portions gaajada ku hayso kaliya inaad iska dimisid ayaa loo baahan yahay sababtoo ah metabolism systemkaaga aad buu u yaryahay waxay la mid tahay mashiinka weyn ee lagu shareed gareeyo warqadaha haddaa warqado badan hal mar aad ka buuxisid mashiinka uu istaagaya systemkaaga saasoo kale waa haddaa cunto hal mar aad cuntid isaga dhan uu istaagaya marka waxaan kaaga baahanahay maalintii inta hal jeer ama 2 jeer aad ka cuni lahayd inaad cuntadaada yareeysatid 4 jeer ilaa 5 jeer ilaa 6 jeer aad cuntid marka qofku wuxuu isleeyahay Allah ilaahay see waqti aan ugu helayaa waxaas oo dhan waxaa loo baahan yahay inaad meal plan aad sameysatid qorsheysatid cuntadaadii marka walaalayaal small portionkaas wax weyn ayuu taraa waxyaalahan kale oo aan rabo inaan kuu sheego waxaa ka mid ah subaxa la seedi markii aad soo kacday 45 minutes ugu horeysa aad soo kacday inaad afka wax gelisid ayaa loo baahan yahay haddii kale jirkaaga uu sirxiraya starvation mood wax la yiraahdo ayuu galayaa hal mar buu isku imaanayaa musqul ma aadaysid ma garanaysa uu gaajoonaya cuntada hadhowtii ay gelisid uu keed gareynaya uu seef gareynaya mana sii daynayo
sidoo kale waxyaalaha aan rabay inaad samaysid waxaa waaye in aad habeenkii markii la gaaro 3 hours 4 hours ka hor waqtigaaga aad cashada waqtigaaga hurdada inaad cashaysid 4 hours prior to your sleep inaad cashaysid oo fadhiisid sababtoo ah cuntada aad rabtid waxaan rabaa in cuntada aad cuntay waxaan rabaa in ay si fiican kaaga baxdo hadhowtiina si fiican ma garanaysaa hurdo ee kaaga imaato marka inta hadda waa hordhac oo ku saabsaneed waxyaalaha aad sameynaysid sababtoo casharkan wuxuu noqon doonaa cashar maalin walba aan insha Allah wadi doono